Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soomaalida marka laga soo tago inay dagaalamaan oo aysan heshiin, arrimo kale ay ku fiican yihiin ayaa jira. Sida ganacsiga, waxaan maanta ku soo qaadan qoraallo laga qoray waqtiyo hore dhaqdhaqaaqii ganacsatada Soomaalida sidii ganacsatadii dhisay magaalo dhan oo waddan kale ku taala. Balse marka hore xataa haddaan fiirino xilliyadan dambe oo Soomaalidu waddankooda uga carareen dagaaladii sokeeye, ayaa wadamo badan oo Afrika ka mid ah ganacsatada Soomaalidu ka gaartay guulo la taaban karo, inkastoo marar badan la kulmaan tacadiyo fara badan iyo hantidooda oo la dhaco. Sanadkan bilowgiisii ayay ahayd markii wargeysyada dalka Zambia shaaciyeen in markii cudurka koleeruhu ka dilaacay waddankaas ay jaaliyadda Soomaalida ee halkaas ay ugu deeqeen dowladda Zambia gawaarida qashinka gura oo tiradoodu gaaraysay 35 gaari, taasoo ay aad u ammaaneen saxaafadda waddankaas. Magaalooyinka Soomaalida ee xeebaha saaran ayaa ahaa kuwa aad u camiran oo ganacsi weyni ka socday qarniyadii hore. Ganacsatadii Soomaalida ee xilliyada hore ayaa waxa ay aadi jireen wadamo aad u fogfog si ay uga soo iibsadaan alaabo kala duwan. Waxaana ka mid ahaa ganacsatada Soomaalida oo 900 oo sano ka hor asaasay magaalo ku taal meel hadda ah waddanka Mozambique oo la oran jiray Sofala, meeshaas oo caan ku ahayd dahabka laga heli jiray. Iyadoo la yiri magaalada magaceedu waa erey Soomaaliya oo ah Sofala oo macnaheedu yahay soo qoda, maadaama meeshaas macdan laga qodi jiray. Inkastoo qorayaasha qaarkoodna leeyihiin magaca meeshaasi asalkeedu waa af Carabi, ganacsatada Soomaalida ayaa halkaasi ganacsi fiican ka sameeyay, taasoo keentay inay ku soo biiraan ganacsato kale oo ay ka mid ahaayeen ganacsato Sawaaxili ah. Sanadii 1180 ayaa suldaan magaciisu ahaa Suleymaan Xasan oo ahaa suldaanka Kilwa oo ah meel hadda ku taala Tanzania, ayaa waxa uu ku soo daray magaaladaas saldanadiisii oo uu si toos ah xukunkiisa u hoos keenay. Qarnigii 16aad ayaa Boortaqiisku la wareegeen magaaladaas. Maanta ayaa gobol ka mid ah waddanka Mozambique loogu magac daray magaaladaas qadiimiga ah. Qoraa kale oo Ingiriis ah ayaa waxa uu ka sheekeeyay xirfadda ay Soomaalidu u lahaayeen ganacsiga mar uu booqday magaalada Berbera 1982, isagoo sidaan u dhigay waxa uu halkaasi ku arkay. Soomaalidu waa dad aan jeclayn in la kontaroolo, aadna u qiimeeya geela. Ninku waa inuu geel leeyahay si loo ixtiraamo oo loo qadariyo. Haddii uusan geel lahayn, waxa uu galayaa ganacsi uu ka helo lacag uu ku soo gato geel. Qofka Soomaaligu kama boqo inuu safro wadamo aad u fogfog oo uu ganacsi u raadsado, taasoo keentay in Soomaalidu jaaliyado ku yeeshaan magaalooyinka Cardiff iyo Newcastle ee waddanka UK. Meelo aad u yaab badan ayaad ka helaysaa Soomaali ku nool. Mararka qaarkood inta ay soo shaqaystaan ayay waddanka ku soo laabtaan. Maraan xafiiskayga Berbera joogay ayaa waxaa ii yimi nin xafiiska Ingiriiska wax ka doonayay. Ninkii turjubaanka ahaa ayaa waxaan ku yiri af Soomaali ku weydii waxa uu rabo. Markaas ayaa ninkii noo yimi waxa uu igu jawaabay af Ingiriis lahjad Australian ah. Anigu af Ingiriiska waan ku hadli karaa, aabahay ayaa i kaxeeyay Australia oo i geeyay Australia oo aad u yar sanadii 1890. Intaas ayaan ku soo gabagabayn faqradan. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.